waxaa jirtay degmo yar oo aad u qurux badan oo nabad iyo quruxba isku darsatay. Degmadaasi waxaa ku noolaa nin la yiraahdo William. William waxa uu ahaa macalinka degmadaasi. Qof walba oo degmada ku noolaana waxa uu yaqaanay magaca Badbaadiye, sababtaa waxa uu markaasi wax baray caruur aad u tiro badan kuwaasoo lahaa mustaqbal aad u qurux badan. Caruurtu waa ay jeclaayeen, waxayna sidoo kale rabeen inay ku daydaan waalidkana. Sidoo kale waxay mar walba isaga ku aamini jireen caruurtooda. laakiin mar walba nabaddu ma aha mid sii dheeraata. dhibaatooyin ayaa ka bilowday degmadii quruxda badneed. waxaa markii hore bilowday arrimo la yaab leh sidii hoos dhaqaaqaya iyo sidoo kale qosollo ilmo yaryaro oo waddooyinka cillada ka yeerayo. laakiin markii xigtay waxay ahayd dhimasho. marka hore waxaa la helay 1 iyo 2 qof kuwaasoo subaxii la arkayay, laakiin muddo kadib waxay bilaabatay meydadku inay iyagoo iskor saaran la helo subaxii ayagoo qalqallay oo si aad u xun loo dilay. calaamado xayawaan ama bil'aadanna aanu ku oolin. dadkii degmada ugu dambeyn waxay garteen waxaan inay rooxaan tahay, rooxaantaasoo si khaasa markaasi u ugaarsanaysay macalinkii William. markii saqda dhexe habeenkii tahay ayaa macalinka hortiisa gurigiisa waxaa soo hor istaagtay rooxaan badan kuwaasoo markaasi ooyaya. waxay istaagaan daaqadiisa waxayna bilaabaan inay xagxagtaan. codadkoodu degmadoo dhan ayay isqabsanaysay, wuxuuna ahaa mid ooyaya. dadkii tuulada waxay markaasi isdhaheen rooxaantani waa rooxaan xun, taasoo u socotay inay dhibaatayso macalinka maadaama uu yahay qof wanaagsan isaga iyo familkiisa. sidaas darteed waxay ku qariyeen macalinkii kaniisadda. habeen walbana waxay bilaabeen inay u duceeyaan ayagoo rajaynaya markaasi inay rooxaanta ka harto macalinka miskiinka. laakiin rooxaantani mayse ahayn mid joogsanaysa. waxay markaasi dileen qof walba oo waddadooda hor istaaga. waxay dileen caruurtii, waxay dileen saaxiibadiis iyo sidoo kale waxay dileen familkiisa. waddooyinkii degmada waxaa ka buuxsamay meyd, qof walbana wuxuu ku dhimanayay ilbiriqsi gudahood. degmadii quruxda badneed ee nabadda ahaan jirtay waxaa gashay cabsi. waxay bilaabeen dadka inay qayliyaan, waddooyinka ayay carcararayaan, hadba qof ayaa la dilayaa. laakiin William weli wuxuu ku jiraa kaniisadda dhexdeeda isagoon dadka qayladiisa maqlaya oo aan u soo baxaynin. dadkii degmada talo farahooda way ka baxday. waxay garan waayeen waxa ay sameeyaan, waxayna garan waayeen sidoo kale sababta ay si khaasa u raadsanayso rooxaantani William. ugu dambeyn guruub ka badbaaday rooxaanta ayaa waxay go'aansadeen inay noloshiisa hore baaraan iyo waxa uu sameeyey. markay ogaadeen waxa uu sameeyey waxaa burburay sawirkii quruxda badnaa uu qof walba ka aaminsanaa macalinkii William. 5 sano ka hor waxaa laga waayay degmadani 3 gabdhood, Mary, Clara iyo sidoo kale Susie. waxa ahaayeen gabdho yaryar oo aad u wanaagsan, waxayna jeclaayeen macalinkooda. si kadis ayaa loo waayay. isbuucyo dhan ayaa la raadinayay, meelay cagdhigaanna waa la waayay. hadda runtii ayaa soo baxday. waxaa ka dambeeyey William gabdhihii yaryarka ayuu meel cidlaa u saartay, kadibna wuu kufsaday mid walba. ugu dambeynna wuu dilay. markii uu dilay kadib lafahoodii waa uu gubay. markii ay noqdeen ciid ayuu meel ku aasay, wuxuuna aaminsanaa in sirtooda aysan nolosha inta ka dhiman aan la ogaanaynin. rooxaantani ma aysan ahayn rooxaan xun, waxay ahayd rooxaantii gabdhihii yararka ee dulmiga loo geystay kuwaasoo u soo laabtay cadaalad iyo sidoo kale aargoosi. dadkii degmadu jacaylkay u qabeen William wuxuu isku beddelay nacayb xad dhaaf ah. isla markiiba waxay bilaabeen inay ka soo jiidaan kaniisadii, waxayna markaasi ku xireen geed aad u weyn. isaga wuu qayliyey, wuxuuna dhahay waxba ma samaynin, wuu baryootamay, laakiin hadalkiis waa la iska dhagaystay. waxay ahayd habeen, waxaana markaasi ifayey dayaxa, wuuna buuxay. waxaa lagu xiray markaasi geed aad u weyn, geedkaas ay ku ciyaari jireen gabdhihii yararka xiisadaha dhexdooda. isla markii ay xireenba hawadu waxay noqotay mid aad u culus. isla markiiba waxaa markaasi indhahooda ka soo horbaxay rooxaantii gabdhihii yararka iyagoo wejigoodu yahay mid aad u cad. waxay hor istaageen William. markaasi dadkii degmada gagadaal ayay u baxeen ayagoo aamusan. William wuu qayliyey, badbaadiye ayuu dhahay, laakiin rooxaantii ayaa ka daba qaylisay. waxayna bilowday mid walba inay weerarto. waxay bilaabeen inay jarjaraan, si aad u xun u jarjaraan. jirkiisa wuxuu ahaa mid hadba kala go'aya, lafihiisu jajabayaan. isagii oo dhan meesha ayaa lagu baabi'iyey. dadkii degmadana way daawanayeen. dadkii degmada way wada aamusnaayeen. qoraxda ayaana ku soo baxday. geedkii weynaa ayay wada eegayeen, kaas uu macalinka ku xidhnaa. waxaana keliyata ka haray
dharkiisii oo jarjaran iyo sidoo kale dhiiggiisii. Macallinkii loo qabay malaa'igta waxaa soo baxday inuu bahal ahaa kaasoo ugaarsaday gabdho yaryara oo wanaagsan. Isaga dartiis ayayna sidoo kale degmadani dad badan uga dhinteen ayagoo isdhahayaan aad ilaalisaan oo u qabay inuu macallin wanaagsan ahaa. Degmadii sidii ahaan jirtay dib dambe ugumay noqon. Geedkii weynaa cidna ma aysan jirin sababta waxa uu ahaa caddayn wixii meesha ka dhacay. Laakiin dadka degmada way ogaayeen in dhaawacyada qaar ay markaas aysan caafimaadi karin, dembiyada qaarna aysan la baabi'in karin.